ilaha ciidanka jabhadda wadaniga xoreynta ogaadeenaya si aan uga faa'iideysano fursadan qaaliga ah ee aanu helay inaan waraysi idinka soo duubo cabdi kariim ku soo dhawo marka koobaad waxaan doonaynaa asba waa naftood horayaasha in kasta oo aynan xanuujinayn geeridu in kasta oo aynan xanuujinayn dhaawac abadan nama xanuujinaya in kasta oo aan waxna dhibayaa jirin inta ciidda ogaadeenaya Itoobiya ay joogto ama gacan gumaysi ay ku jirto inta uu jira hal qof oo kamid ah shacbiga ogaadeenaya oo dhiban nama dhibayso geeridu nama dhibaya dhaawac wallahi baan ku dhaartay nama dhibayo waxaan ka codsanaynaa shacbiga ogaadeenaya inay dagaalka nala galaan walaalahana inay dagaalka nala galaan maalkooda inay nagula galaan chance bay maanta haystaan inay nooga faa'iideeyaan waqtigooda inay nageliyaan maskaxdooda inay nageliyaan taas aan ka codsanayaa qofkii naga hada nasiibka taariikhda qori tan kale waxaa jira buuq iyo meelaha hadal laga sheegaa jira ashqaas khilaaf joogaha jirta ashqaas intay dan waxyaabahaasna waxaan codsanaynaa midnimada wawliba ma hadad waa dad dhalinyaro oo bisaylkooda fiicnayn baan isleenahay waa kuwa cadowga soo dirsaday baan isleenahay ha ka daayeen shacbigooda iyo halgankiisa dabandaabyada ha ka daayeen Itoobiya qofkii maanta dawlad moodaya qofkay raja kaga jirto ha ku qoos qaato kuwii muddada badan la shaqeynay muddada badan kuwii la shaqeynay ha ku qoos qaato ha ogaado in uu yahay bahal u ooman dhiig aadamaha wax kale oo qancin kara ma jiro bahalka dhiiga aadamaha ooman adiga sharaf kuma hayo karaamo kuma hayo shacbigaaga nolol ma hayo aduu wax ka dhaxli maysid waa xaqiiqo weey gumaysigu ku gargaari maayo kuma gargaarayo ha ka godab ha ka gelin shacbiga ogaadeenaya taariikhdu yeena kugu qorin baal fool xun yeena kugu qorin ummadaada wax u tar ayaga u soo noqon doonta aakhirkeeda iyaga u heeli dadkaaga u heeli diintaada iyo sharaftaada u heeli u diyaar garow sharaftaada iyo karaamadaada kuwa ka shaqeynaya inaad la mid noqoto waa qofka habsanka ah ama meelaha ka hadlay macna darrada kuwa xogaa mararka qaarkood buuqa iyo beesay la'aantu ay ka muuqatana waxaan leenahay ummad midaysan oo meel ka soo wada jeeda oo u fikirta sida qof kaliya yaani waa inaan aad lahaataan hal qof qalbigi hal qof go'aanki hal qof deeqsoonidi hal qof kartidi inta inaad lahaataan intaasaan ayagana ka codsanayaa waa maasan dad waxaa jira inta badan u dhashay shacabka reer ogaadeenaya oo dibadda jooga oo aad iyo aad ugu xagliya ama u taageera Tigreega marka arintaas bal fikirkaaga iyo taladan siinayso maxay tahay ee dadka ku aadan horta waa nasiib darro dad cadawgoodii u gargaaraya waxay la mid yihiin mas ilmahaagii qaniinsan inaad dhabarka u salaaxdo oo dhahda baska kanaa qurux badan iyo kanaa dhogor macaan iyo kanaa itaalle waa dad ay bisayl la'aan u geysay inay cadawgooda gacan siiyaan waxay ilowsan yihiin mustaqbalkooda meesha uu ku dambayn doono waxaa sabtay oo jiitay bisayl la'aantooda ayaa waxay ku kaliftay inay cadawgooda u gargaaraan adduunyadan maalmo kooban dhaldhalaal keedana inay dan moodaan in kastoo aan hubno Itoobiya dadka u gargaaray inuusan marnaba nolol ka helayn sidaan hadda ka hor sheegay waxaa sayaab la hadii ay tageen oo dhax galeen wadankaas nabadgelyada ah horumarka gaaray aqoontii taale dhaqaalihii yaal sababta ay weli gumayso u adeegayaan arinta yaab kala waata arinta isweydiinta la waata kale yaab kale waxa weeye ummadan la xoreeyin hayo ummadan la gumaysanayo ee la doonayo in la xoreeyo ee aabayaashood halganka ay ku soo jireen iyaga ee awayaashood halgan ku soo jireen iyaga ee wax dhibani iyagiya wax ay weli u aaminsan yihiin intay ogaadeenaya ka tagaan oo intaasoo dal sii maraan oo Yurub iyo tagaan Ameerika in ay weli u gargaaraan cadowga arinta ayaduna yaab kale waa taaw arinta wax la yaabaa waa taaw waxa kale inay iyada laftigeeda ay garan waayaan kuwii ka horeeyay waxay ku dambeeyeen kuwii ka horeeyay madaxweynayaasha halkay ku dambeeyeen wasiiradii gumaysiga u shaqeynay halkay ku dambeeyeen ayadana inay garan waayaan waa nasiib dar waxaan la yaabanahay dadkaas maskaxda ay ku shaqeynayaan maxay tahay nin la gumayso dalkiisii la gumayso dadkiisii la laynayo waxa duleysana isaga uu yahay
inuu u gargaara kii leenahay dadkiisa ee gumaysanaya dalkiisa inuu u gargaara cadowgiisa marnaba uu xaqiiqada arki waayo arrintaasi waa nasiib darro waa garasho jaan weyn waxaan dhihi lahay ogaadeynaya halgankeeda waxba yeeli maysaan kacdoonka shacbiga ogaadeynaya iyo xorriyad doonkiisa waxba yeeli maysaan idinku lafiin ha ugu dhimanina wajigiin ha gubto lafiin ha ugu dhimanina nacfina ka heli maysaana ilaahay risiqa uu qoraa baxay waxaa leeyahay risiqa ilaahay kuu qoro adigoo waxna ka dhimi karin waxna ku dari karin ama ceeb ku cun ama ciisi ku cunba darajada ilaahay baa bixiya risiqana ilaahay baa bixiya taariikhduna wax walba way qori doontaa maalin walba way ku qori waxaad samaynaysa way ku qoraysa waxaan dhihi lahayn kuwaas tanaasula ashahaata ilaahay ka yaaba waxaad dilaysaan waa dadkiinni waxaad duleynaysaanna waa dadkiinni waxaad u gargaaraysaanna waa cadowgiinni waa ilaahay cadowgiisii wey usoo noqda dadkiinna iyo dalkiinna iyo iimaankiinna iyo diintiinna usoo noqda walaalayaal haddii aad tihiin dad wanaagsan walaalaynun haddii aad dulligan iyo munaafaqadan kusii jirtaanna cadowga nagaa tihiin maalin ay noqotabana maalin baanu qoorta idin soo qaban doona mar ay noqotaba mar baanu qoorta idin mid walbana wuu noo qoran yahay mid walbana waa naqaanaa waxay ka shaqeeyaanna waa naqaanaa waxaasoo dhan waa naqaanaa maanta waxaa idiin furan albaabada naxariista iyo tolnimada yaa idiin furan ka faa'iidaysta intaan waktigu idinka dhammaanin ka faa'iidaysta maalmaha idiin hadhay adduunyadan dib ugu soo noqda ilaahay idiin abuurtay shacbigiinna cafis weydiista ururkiinna xaqudirarkaa cafis weydiista laydinkama xiga oo halgama ummaddiinna laydinkama xiga kaalaya oo ummaddiinna maamula haddaad hogaamintihiin haddaad aqoon-yahan tihiin shacbiga ogaadeynaya maanta wax hogaamiye u baahan shacbiga ogaadeynaya wax u taliya u baahan waa mayd bannaan yaalla kaala nala aas kaala nala xoreeya weliba cadowgii hadda dhexdaan ka jabinay bartankaan ka jabinay kaalay nala jiida baktigiisa kaalay nala jiida haddaad nala jiidi weydaan isaga iyo idinkaba hal mar baanu idin wada jiidi haddii ilaahay yidhaah